بسم الله نادي تعرضي فون فورة أما فصل كلا تمنادا إسلام مركزنا إسكو ديارنا امتحان كقرنكا هي ستيد بواق بقولال بيجا مادوين كنا يبديين وحاليا بين أرنتا سيقول كوجهيسو وعن مقال كان كوجل وذاك دونا نظام أما هب كوفو ذينا هنا سوكوبتو بواق تكلا دوان بقولال كبيجا فوضينا هنا فان كاجا habka soo kamida habka wax loo diyaariyo ama imtixaamaadka loo diyaariyo midka ugu fiican ee la socod wanaagsan qaybaha uu ka kooban yahay nidaamkaas oo qaybo kala duwan ah arday horta mid ugu buugan weyn ay haysatid boqolkiiba 80 waa war boqolkiiba 20 ayaa nuxura muhiimna ah inta badan ay imtixaanaadka ka yimaadaan marka qodobka ugu horeeyay oo aan ka bilaabayno waxa waaye 20 kaas nuxurka u calaamadeysan kartaa ama aad u soo saaran kartaa marka si aad u soo saaratid waxa la isticmaalaa nidaamka ugu horeeyo la isticmaalayo ama talaabada ugu horeysa waxay tahay ina buugga min bilow ilaa dhamaad eegid waxa la eegid ama dulmar aad ku sameysid adoo calaamadeysanaya meelahaas muhiimka ah maxaa muhiim marka midda ugu horeysa maxay tahay oo muhiim buuggu wuxuu ka sameysan yahay chapterka ugu horeeyo wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo ciwaan wuxuu sii leeyahay waxa la yiraahdo ciwaan hoosaadyo meelahaas ayaa kaaga baahan inaad calaamadeyso waxa uu leeyahay oo calaamadeynaysa oo qodobka saddexaad ah hordhaca chapterka iyadana waa meelaha ugu muhiimsan leena hordhacaas inta badan fikradaha oo cutubkaas uu ximbaarsan yahay ayaa lagu sheegaa marka iyagana waa inaad calaamadeysataa tan afraad waxay noqon kartaa ciwaanada waaweyn ee hordhaca la socdo ama ka hooseeya ama ka koreeya iyaga laftirkooda waa muhiim inaad waxaa la socda jumlado soo ciwaankan waxaa lagu gartaa waa farn madow gudaha ku jiri karaa ciwaanka ugu horeeyo la socon karaa waxaa la socda waxa la yiraahdaa iyagana in la akhriyo ay tahay jumladahaas inta badan waxay noqdaan ciwaanka farta madow la socda waxa la yiraahdo qeexitaano soo iyadana waa ina akhrisaa waxaa kaloo iyagana qodobka shanaad sii galayo aad muhiim u ah waxyaabo la yiraahdo qoraal sawireed oo inta badan muhiimna ah qoraal sawiraadkaas waxaa kamid ah inta badan buug waxaa ku dhex kartaa far oo jijiif oo inta badan loogu talagalay meelaha xigashada oo la soo xigtay fartaas waa in akhrisaa waxaa kaloo kamid ah mid haddaan soo sheegin oo kale wixii bold ah ku aragto kale iyada laftirkooda aan ciwaan ahayn iyadana waa in akhrisaa waxaa kaloo kamid ah meelaha geesaha ah ama marginka loo yaqaan buugga iyada laftirkooda qoraalo la soo koobayo page-ka lagu qoraa iyadana waa in calaamadeysaa qaybta hadda qoraal sawireedka kamid tahay waxaa kaloo kamid ah liftirkeeda oo isla qaybtaas ka tirsan waxa la yiraahdaa listi meelaha qaar waxaa 1 2 3 ku qoran ama ABC ku qoran idana waa in akhrisaa isla qoraal sawiraadkaas waxaa la socda liftirkeeda waxa la yiraahdo qoraal oo color wata ama hoosta ka xariiqan iyagana waa muhiim qodobkaasi oo shanaad isku wada galayaan waxaa kaloo iyadana muhiim ah oo qodobka lixaad naqanayo inaad xariiq hoosta ka xariiqata ama aad isha maraysa ah buug wuxuu leeyahay wuxuu ugu dambeeya baragraafyada ugu dambeeya ama waxyaabo la yiraahdo inta badan wuxuu leeyahay buug qaybo ugu dambeeyso loo yiraahdo summary ama soo koobitaankii cutubkaas in la soo koobay fikradii oo xambaarsanayo la soo koobay qaybahaas iyaga laftirkooda ina calaamadeysato waa meelaha akhriska badan kaaga baahan doona meelaha ugu dambeeya iyagana muhiimka waa ina calaamadeysato qodobka 7aad aadaya waxaa kamid ah iyadana buugga markuu dhamaado waxaa lagu gabagabeeyaa inta badan su'aalahaas laftirkooda iyaga laftirkooda waa ina calaamadeysid su'aalaha iyaga laftirkooda waxaa la sii socda wax la yiraahdo erey bixino oo laga yaabo inay wataan iyagana oo listi ah ama list dheer ah iyagana waxay wataan inta badan waxyaabo la yiraahdo qeexitaano waxaa laga yaabaa in cilmiyaadkaas hadhowto kale lagu keeno imtixaanka marka iyagana waa inaad calaamaysto marka ilaa 7daas meel ee aan soo sheegnay waa meelaha ugu muhiimsan oo nuxurka ximbaarsan buugga boqolkiiba 20 ka ah oo ay tahay ina calaamadeysid ishan amar marisid ana ku sameysid qodobka hadda aan ka soo hadlayno ah eegid guud kadib ayaan aadi doonaa markaas waxa aadi doontaa wax la yiraahdo qodobkan labaad waxa loo yaqaanaa wax la yiraahdo su'aal samaynta marka wixii aad soo eegtay ee aad soo calaameysay isku dayaysaa marka inaad u bedesho wax la yiraahdo su'aalo لأن سؤالها وحال أنت بدل مسكحة ذي بحكي لك عن متفرفرعون أو شقين نيسا هادو يتنو حسوس تادا أي فوضين دونا إنا وحسي فوض أو حسوسته مركا عوان نضي iyo hordhacyadii
iyo meelihii sawirada u ekeed waxyaabahaas oo dhan ama jabtarka meelaha uu ku dhamaanayay ama meelihii sawirada ahaay waxyaabahaas oo dhan oo meel kastoo isleedahay su'aalay noqon kartaa meelihii hadda soo calaamadaysay waa inaad u bedeshaa su'aal tusaale su'aalo maxay noqon karaan tusaale waxaa la dhihi kartaa biology oo kale lagu dhigaa waxaa dhihi kartaa what's cell biology ama waxaa dhihi kartaa what's difference ama wuxuu yahay farqiga u dhexeeyahay cellka ay leeyihiin bini aadanka iyo midka ay geedaha leeyihiin ayaa dhihi kartaa tusaale ama waxaa dhihi kartaa waxay sheegi kartaa haddii physics-ka dhigato kale waxaa dhihi kartaa what's convex iyo concave oo kale maxaa farqiga u dhexeeya tusaale su'aalo noocaas samayn kartaa ama English oo kale waxaa la dhihi karaa 8 parts what are the 8 parts of English ama dhihi kartaa saas oo kale su'aalo noocaas ama waxaa la dhihi kartaa su'aalo isbarbar dhiga oo inaad tiraahdo what's the difference between noun and pronoun maxaa farqiga u dhexeeya in magac iyo magacuyaal maxaa farqiga u dhexeeya marka su'aalahan ha ka dhigin su'aalo ay ku firan tahay jawaabtooda yes no ana araba hadhowta jawaabaha sameey doonta waa inay noqotaan su'aalo oo 3 qodob ama 3 sadar ka sameyn karto marka laftirkooda su'aalaha u sameey qaab barbardhiga iyo qaab qeexitaana qaybahaas oo dhan su'aalaha u sameey marka kadib waxaa iyadana ka fikri doontaa fikirkaaga dadku laba qaabay wuxuu xifdiyaan qaabkee wuxuu xifdisaa ma muuqaal ahaan wuxuu xifdisaa mase dhageysi ahaan wuxuu xifdisaa marka haddii aad muuqaal ahaan wuxuu dhageysi ahaan wuxuu xifdiso su'aalaaga duubo oo markii aad dhameysid oo jabtar kasta aad ka samayso ama cutub kasta aad ka samayso su'aalahaas iyago duuban ayaad hadhowta dhageysan kartaa adoo meelaha iska socda dhageysan kartaa ama qoraalka ayaa kugu filan visual ahaan ama muuqaal ahaan kugu filan marka intaas waxaan ugu gudbaynaa marka inaad wixii aad soo indhaysay su'aalo u bedeshay waxaan aadi doonaa insha Allah qodobka saddexaad oo isagana muhiimadiisa wata mar hadda su'aalo soo samaysay qodobka ama nidaamka saddexaad wuxuu noqon karaa ama talaabada saddexaad waxay noqonaysaa waxa la yiraahdo inaad su'aaliin laga jawaabo oo qayb kasto ama ciwaan ahayd ama aad u soo bedeshay su'aal waa inaad jawaabaheeda qortaa jawaabuhuna waa aysan ka naqanin jawaabo ku kooban yes no ha maya waa inay noqdaan kuwa ka kooban ugu yaraan ama ku qoran 3 sadar ama 2 sadar ama 4 sadar inta badanna meeshan waxaa laga rabaa xifdiskana inta badan waxyaabaha fududeeya waxaa kow ka ah ina ereya adiga aa leedahay laga yaabo buuggan in ereya aad adagoo iska English ay ku qoran yihiin ama Carabi ay kugu qoran yihiin isku day inaad u bedesho ereyadaas ereya adiga aa leedahay waxaa laga yaabaa erey kasta meesha kugu cusub ama kugu adag erey kale oo la micno oo kaaga fudud inuu jiro marka ereya adiga aa leedahay u bedel xogta soo koob su'aal kasta ee aad soo samaysana ka jawaab marka qaybtan waxaa leedahay inteeda badan waxaa la akhrin iyo ka jawaabid oo su'aalihi aad soo samaysaa wadada afraad waxay noqonaysaa marka ama nidaamka afraad oo isla systemka ama nidaamka ay isticmaalaysid waxay noqon kartaa markaas buggii maadaama aad su'aalihi ka jawaabtay oo ay kaaga jawaabayeen qayb kasta waxyaabihi aad eegtay oo su'aalaha u soo bedeshay maadaama qayb kasta kaaga jawaabantahay qaybtan waxaa la yiraahdaa inta badan buggaaga isku laab meel iska dhig kadibna waxaa samaysaa waxa la yiraahdo inaad istijaabisid oo tiraahdo inuu su'aalihi hadda aan soo sameeyay meeqan ka jawaabi karaa anigoon buugga akhrinaynin meeqan ka jawaabi karaa marka waxaa laga yaabaa marka waa ka bixinta hadda quraanka oo kale markii inta badan loox lagu soo qoro qofku wuu soo akhriyaa meeluu soo fadhiistaa hadhow kadib uu yimaadaa uu ka baxa ka bixitaanka maxaa waaye maskaxdaadii in wixii sida ugu qoran yihiin inaad fiirisid marka qaybtan waa saas oo kale u dhigantaa waxaan samaynayaa marka inaad su'aalihii jawaabihii inaad xasuusan karto inaad dib isku tijaabiso haddaa xasuusan weysa marka mid ogow waxaa ogaa doontaa in su'aalahaas ama erey adag oo maskaxdaada isla markii aan gelin ay ku qoran yihiin dib u laabo su'aalaha aad ka jawaabayso soo fiiri jawaabahooda fiiri waxa caqabadaha keenaya fiiri kadib bal mar kale soo akhri haddana mar kale isku tijaabi inaad xasuustaada adoon buugga akhrinaynin inaad su'aalihii jawaabahooda aad akhriso jawaab kasta qodobka shanaad ama nidaamka qaybtiisa shanaad ama stepkiisa wuxuu noqon doonaa wax la yiraahdo maraajico mar haddaad soo eegtay buuggii ood su'aalo u bedeshay oo su'aalihii aad ka jawaabtay oo adiga laftirkaaga inta meel iska dhigtay wixii inaad kor ka akhri kartaa ogaatay oo inaad qaybaha kala duwan ee su'aalaha aad ku laabataa oo tiraahdaa anigu maxaan ka soo tegay maxaa buugga ka imaan kara macalinka laftirkiisa imtixaanka dejinaa waa qof bini aadan adiga camal ah marka buuggoona ka keenaa ama wax ka agdhow waaye marka inaad istiraad maxaan ka soo tegay
markii ugu dambeeyay aan sameynayay akhriska aan sameynayay oo aniga aan buug fiirin aan akhrinayay maxaan ka jawaabi waayay inta meel fadhiisatid laftirkaaga inaad qaybahaas oo dhan aad soo muraajicisid mar kale inaad xasuustaada aad tijaabisid su'aalihii maxaad ka jawaabi kartaa haddii meel kugu adkaadaan laftirkeeda ku celceli wax adag ma jiraan kaliya ku celcelin kaaga baahan yihiin ku celcelintana waxaa samaysaa waqtiyo kala duwan tusaale waxaa samaynaysaa galabtoo kale markaa wax muraajicisid beriyoo kale u soo laabo waxaa samaysaa inaad su'aalihii xasuusan karto inaad jabtarka cutubyadiisii iyo wixii su'aalihii iyo wixii aad akhrisay iyo jawaabahoodii iyo xasuusan karto 5 saacadood ama maalin kadib haddana tijaabi buugta dhan kuu samaysan saas ku samey meelaha waxyaaba ugu fiican ee ka qayb qaata inaad su'aalahaas xasuusato jawaabahooda xasuusato waxaa ka mid ah inaad qof kale sii barto markaa qof kale sii bar ardayga saaxiibka ah bar walaalkaa kale caawi saas samey marka haddii muuqaalkan u aragtay inuu aad faa'iido kugu leeyahay walaalkaa laftirkiisa la sii wadaag saaxiibkaa la sii sheer garay cilmiga sidiisaba inaad saaxiibka iyo dadka kale iyo dhalinyarada u baahan aad la wadaagto uu ku sii bataa maahane kuma nusqaa marka assalaamu calaykum muuqaalka intaas ugu egyahay